Doorashada xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa la qaban doonaa dabayaaqada sanadkan iyadoo ay ku tartamayaan shakhsiyaad kala duwan. Ilaa haatan, 4 musharax ayaa isku soo taagtay u tartamidda qabashada xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya, kuwaas oo kala ah Cabdiqani Saciid Carab oo ahaa guddoomiyihii hore xiriirka kubadda cagta, Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo haatan ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta, Maxamed Axmed Cantoobo oo ah agaasimaha guud arrimaha bulshada gobolka Banaadir, iyo Faysal Maxamed Cabdulle oo ahaa guddoomiyihii shirkadda Shan Star. Waa markii ugu horeysay ee tartamayaal u sharaxan xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed bulshada iyo bahda isboortiga la hor imaadaan ololahooda doorashada, halka markii hore ay doorashada guddoomiyaha xiriirka ahaan jirtay gacantaag, taasoo aan yeelan tartan sidan oo kale ah. Cali Shiine oo haatan ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta, isagoo 8 sano ku jiray howlaha xiriirka maadaama uu hore u ahaa guddoomiyaha ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Intii uu guddoomiye Cali Shiine uu hoggaanka xiriirka hayay, waxaa isbeddel weyn uu ku sameeyay xubnaha xulkeena qaranka Soomaaliya ku heliya safarada, waxaana kulamadii xulkeena la ciyaar Iswateeniya safarada qayb ka ah qaar ka mid ah suxufiyiinta madax bannaan. Sidoo kale, guddoomiye Cali Shiine waxaa lagu ammaanayaa sida uu u dardargeliyay isku aadinta xulkeena qaranka Soomaaliya, isagoo markii ugu horeysay xulkeena 2 kulan oo saaxiibtinimo uu ku dheelay dalka Tanzania ka hor dheesha aan la lahayn xulka Iswateeniya. Taas waa mid ay bahweynta isboortiga ku ammaanayaan Cali Shiine. Dhinaca kale, Maxamed Axmed Cantoobo oo hore u soo noqday guddoomiyaha degmada Hodan, haatan ah agaasimaha guud arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, ayaa ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Cantoobo waa shakhsi saaxiib la ah dhalinyarada, gaar ahaan bahda isboortiska, isagoo mar walba garab taagan ciyaartoyda kubadda cagta dalkeena, waxaana uu sidoo kale safaro kala duwan u raacay kooxaha ka dhisan dalkeena iyo qaranka Soomaaliya. Waxaa la aaminsan yahay inuu yahay shakhsi ku habboon kaalinta hogaamineed xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed markii laga cabir qaato sida ugu heelan yahay horumarinta kubadda cagta dalkeena. Cabdiqani Saciid Carab, guddoomiyihii hore xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, ayaa mar kale diyaar u ah u tartamidda hoggaanka xiriirka oo hore 2 jeer ku guuleystay, inkastoo bishii Febraayo sanadkan uu iska casilay xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta kadib markuu khilaaf xooggan soo dhexgalay isaga iyo guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta. Cabdiqani Saciid Carab ayaa 8 sano hogaaminayay hoggaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Intuu Cabdiqani ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, xulkeena qaranka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay guul ka keenay ciyaaraha isreebka koobka adduunka kadib markii ay garaaceen xulka Zimbabwe. Sidoo kale, xulka 17 sano jirada dalkeena ayaa gaaray finaalka tartanka Sekafa Under 17. Ugu dambeyn, Faysal ayaa ah musharaxa ugu da'da yar ee u tartamaya xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta, waxaana uu hore u soo noqday guddoomiyaha shirkadda Shan Star ee sameyn jirtay qalabka isboortiga iyo fanaanadaha ay ku ciyaaraan qaar ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Soomaaliya Premier League. Si walba ha ahaatee, bisha November dhamaadka sanadka 2022 ayaa lagu ballansan yahay inay qabsoonto doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kale ay soo bixi karaan musharaxiin kale oo u tartamaya hoggaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Haddaba, haddii aad ila soo gaartay ilaa dhamaadka, waa kuma shakhsi u qalma inuu hogaamiyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed? Aragtida waa nala wadaagi kartaa qaybta hoose. Waxaan ahay Cabdifataax Cabdirashiid Abuukarnaani.